يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal waxaynu ka hadlaynaa khatar aada u weyn oo mujtamaca muslimka ah dhib badan ku haysa, aadna inoogu soo fidaysa, kana mida cudurrada bulshada dhibka badan. waxyaabihii diintu u timid inay hor joogsato mid ka midana ah alaa wahiya zina, waa sinada waxa la yidhaahdo. waxaa kalifaya inaynu ka hadalno, sharcigii baa ka hadlay, qur-aan iyo xadiidba. xadiida fartameeye ku dhow iyo aayado tobaneeye ku dhow baa sinada ka hadlaya, inay xaaraan tahay iyo khatartay leedahay, iyo iyadoo soo badbadanayso ku soo biiraysa bulshadeena kadib markii ay caadaysteen dadku ama daayarteen u qaateen dhaqanka shisheeyuhu inuu yahay wax lagu ilbaxo, waana dhaqan loogu talagalay bulshada islaamka in lagu baabi'iyo. madaxdii faransiiska mid ka mid a baa wuxuu lahaa, muslimka dagaal baynu la gallay military, ma kaga macaashayno, laakiin ruux dumar ahoo jidhkeeda iibsatay iyo dhalo khamriya ayaa waxay noo dhaamaan kun madfac aynu ku ridno. raggu saasuu u fikirayaa. idan waxaynu arkaynaa kulamo badan oo bulshada dhex dhaca, haddii ay daayarta weliba meelo lagu caweeyo, dalxiis la isla sameeyo, sidoo kale baabuur yaryaroo hadda soo korodhay oo khatar badan oo aad arkaysa magaalada markaad koonayaasheeda ku wareegto ama magaalooyinkaba, iyadoo laga dhigayo in la dalxiisayo baabuur kaymaha iskaga wada jirto. marka la isdul taago wiil iyo gabadh baa ka soo baxaya, kala ajnabiya, daayara, maxay samaynayeen? qaarkood baa iyagoo kala sinaysanaya la isku qabto, ama booliska ama hay-adaha alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar. wax la yaab badan weeye, waa dhaqan inagu soo kordho xun. fakinadii la sheegi jiroo la firdhiyey un weeye, oo halkay meel ku urursanaan jireen buyuutu dacaara iyo guryaha lagu sinaysto unbaa la firdhiyo sida loo faafiyey. idan markaa arrintaasi waa arrin jirta. waxaa kalaynu ogsoonnaho ay tahay waalidka iyo dadka waaweyn inay ku baraarugaan. daayartu berigii hore wax badan baanay arki jirin, oo cawradan iyo ceebtan shaarica taalla, internetkan, agabkan la daawanayo, waxa laga yaabaa qofka weynba ka yari maanta inuu uga aqoon roonyahay sida la isu waxeeyo, leannu halkan u arkaya qurunkii baa lagu soo daayey, lacag yar buu ku shubanayaa, daawanayaa, moobayladan smartka ah ee casriga ah buu isticmaalayaa. marka arrintu sidii hore way ka khatar badan tahay. marka asbaabtaas oo dhan waxay keenayaan in laga hadlo, sharcigu wuxuu ka qabo, sababaha keena, sida looga hortegayo, dhibaatooyinka ka imanayana waynu xus insha allahu. sinada waxaa la yidhaahdaa markeeda hore dad baabaan fahamsanayn oon aqoonbe, waa wad'u lmar'ati min gayri caqdin sharciy, waa ruux dumar ahoo loo galmoodo caqadaan sharci ahayn. taa waxaa ku baxaya waxa ay gaaladu u yaqaanaan guur, ma aha guur iyagu. mar haddaan caqad sharciya la saarin, wuxuu noqonayaa sinuu noqonaya. ibnu qayim waxa uu leeyahy raximahullah, markaa qur-aanka baadhay macsiyada ama dembiyada qur-aanku uu qurunka ku tilmaamay ereygaa qurun, oo markaas noqonaya annijaasatu waalkhubth, waa saddex buuli. mid ka midii waxa weeye gaalnimada. ilaahay baa wuxu uhi innama almushrikuuna najas. nimanka gaalada la yidhaahdaa gaalnimadooda daraaddood nijaas weey. midka labaadna waxa weeyaan waxaan la yidhaha luudiyada, xagga dambe qofka bani aadamka ah oo qof kale uga tago, ama rag haada ama dumare. ilaahay baa wuxu uhi wanajaynaahu min alqaryati alatii kaanat tacmalu alkhabaa'ith. nebi luud waxaan ka badbaadiyey baa ilahay uhi magaaladii qurunka samayn jirtay. oo waxaan maanta gaalada ay ku faanayaane ururada qowmuluudku maanta waaba kuwa u awood badan adduunyada,
heerkay gaadheen sida yuhuudda awoodda u samaystay iyaguna awood bay samaysteen ilaa caalamkan waxa xunba aada u shaqaynaya cidda kuwaa isku taataabta calankooda la laabaya midda saddexaadna waxa weeye zinada buu sheekhu leeyahy ilaahay baa wuxu uhi alkhabiihaatu lilkhabiihiina waalkhabiihuuna lilkhabiihaat ragga iyo dumarka xunxun ama qurunka ahi iyagu unbaa isleh oo isla duula culimadu faalladay ka bixiyeen markay nusuusta sharxayaan aad bay u badan tahay ibnu xajar raximahullah isaguna waxa uu leeyahy sinadu heerar bay kala leedahay sii kala xun way xun tahay ruux in laga sinaysto dumara dariiqo xaaraana lagu tago waxaa ka sii xun sida xadiidka nabigaba laga fahmaya calayhi salaatu wasalaam gabadh nin qaba inuu ninku ka sinaysto isagoo ugu qarinaya sinadii waxaa ka sii xun zina almaxaarim gaalada aada u sameeya in dadkii xigtada ahaa walaalaha ahaa ama isdhalay ama ehelka ahaa kala sinaystaan way xun tahay qofka dhallinyarada ah inuu sinaysta buu sheekhu leey waxaa ka sii xun kii sheykh ahaa ee odayga ahaa inuu isaguna sinaysto way xun tahay addoonku inuu sinaysto waxaa ka sii xun kii xorta ahaa oo sinaysta wuu xun yahay sinada qofka jaahilka ahi waxaa se ka sii xun qofka caalimka ah ama diinta leh waxaa la idhaahda sinadu in fara badan ayaa asxaabtu naftooda iyo ehelkooda iyo aad ay uga diri jireen ee uga dagaalami jireen waa cirqigii ama sharaftii qofka bani aadamka oo dhaawac soo gaadhaya dhaawac aada u weyn oo aan weligii ka hadhayn waxaa lumaya abtirsiimada wixii la odhan jiray cuhmaan ibnu cafaan allaha ka raali noqdo wa huwa muxaasar waktigii la dilayay kacdoonku dhacay iyadoo gaadh laga hayo oo kuwii dilaya ay doonayaan inay dilaan ayaa wuxu uhi war saddex arrimood oo la igu dila midna maan samaynin buui ma ankartu llaha mundu caraftu ilaahay intii aan aqoonsadeen islaamay marna dib ugama noqon murtad maan noqon murtad baa la dilaaye walaa zanaytu fii jaahiliyatin walaa lislaam intii aanan islaaminna maan sinaysan oo dadku sinada iska isticmaali jireen intii aan islaamayna hadalkeedaba daa qof muslima dee dhiiggiisana maan gelin buui oo dhiiggiisu xaraam yahay saddexdaasuu nebigu sheegay in wax loo dilaya maxaa laygu dilaya marka sinadiibuu ku soo daray gaalnimadii iyo dilkii mar kale u dardaarmaya oo wuxuu lahaa addoomihiinna aan xirfadda iyo shaqada aqoonin ha u dirina inay wax soo saar idiin sameeyaan waayo markay waxba weyda waxna laga doonayo jidhkeeda ay soo iibin ilmaha yarna soo shaqee ha odhanina markuu waxba soo waayo waxbuu soo xadi dhowrsoonaada buuhi wacifuu id acafakum allah wacalaykum min almataacimi maa taaba minha waar afkiina iyo ibtiina xaaraanta ka ilaaliya oo ibtiina iyo cawrada hoosena sinada ka ilaaliya buu lahaa cuhmaan ibnu cafaan afkiinana xaaraanta a cunaysaan ka ilaaliya abi hurayra wuxuu lahaa man zanaa aw shariba alkhamra nazaca allahu minhu liimaan kamaa yakhlacu linsaanu alqamiisa min ra'si qofku kol hadduu khamriga caba ama sinaysto iimaanka ilaahay wuxuu uga siibaa siduu qofku isaga siibo shaarhkiisa ama khamiiskiisa oo ma istaahilo inuu iimaansii lahaado insaanka noocaasi qofku markuu cudurka noocan oo kalea caadaysta ama sinadan magacyadii wanaagsanaabaa ka taga alcafiif alamiin ilbaar magacyadu la baxayaa waxa weeyaan alfaajir alfaasiq alzani alkhaa'in magacyada noocaasoo runtii ceebtiisa tilmaamaya ayuu qofkii qaadanaya shayga la idhaahdo sinada diimaha samaawiga o dhan way xaaraantinimeeyeen laakiin laba dhaqan diin odhan mayna laba dhaqan oo maanta adduunyada lagu isticmaalo gaaladu ay isticmaalaan ayaa xalaaleeya midi waa nidaamka la idhaha addimuqraadiya oo asalkeeda ku salaysay alibaaxiya dadku inay mubaax noqdaan sinada xor ay isaga noqdaan oo waxa dembiya nin iyo naag isdiidanoo ninku inuu ruuxa dumara kufsado ayay ku leeyihin ama qasbo walow keedaba ha ahaadeen laakiin labada qof iyagoo xor oo isogol hadday isu galmoodaan sino lama idhaahda bay idhahdeen kuwa boobabkuna dhinaca kaley mareen iyo ragga kaniisaduya waxay idhaahdeen waxa galmada la idhaahdo ma bannaanaba ninku waa inuu gaar isaga joogaa
ruuxa dumarka ahina waa inay gaar isaga joogtaa oo qofku hamadiisa uu iska haystaa manay haysanine ila waa bani aadam noole boobabkiiyo soorooyinka kuwan kaniisadda joogaa mid waliba ilmo yar buu u gurguurtaayoo lagu eedeeyaa kaniisadda lagaga saaraa oo la yidhaha kaasina inankaasi waxeeyey kaasina inantaa yar buu waxeeyey marka islaamku labadaa wax u dhexeeya ayuu jideeyo caqdiga sharciga galmada inay xalaal tahay qofku hamadiisa inuu guto ay to dariiqo sharciya uu ku guto sinadu waxay leedahay asbaab ay tahay inaynu ka feejignaano sababta aynu isugu baraarujinaynana ay tahay oo dee nusuusta ayna farayso oo lagaga hortegi karayo waxa kow ka ah alxathu cala azawaaj guurka in dadka lagu dhiiriyayo dhallinyarada oo lala fududeeyo oo wiilashiiyo gabdhaha qaan gaadhay intii la kari karo loo guuriyo oo siyaasada caamahoo la qaatay inay taasi noqoto waalidka iyo madaxda iyo maalqabeenka la isugu wada tago mujtamac kasta oo guurkiisu uu badan yahay sinadiisu way yaraataa waxaa ka mid a waxaa la yidhaahda eegmada xaaraanta ah ee qur-aanka ilaahay inoogu diiday raggana gaar buu la hadlay dumarkana gaar buu la hadlay ilaahay uu leeyahay ishiina haysta ishiina ka haysta sinada waxaa la yidhaahda eegmada xaaraanta ah qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim fariintan gaadhsii nebi maxamed oo ragga ilaahay rumeeya waxaa tidaa indhihiina xaaraanta ka haysta waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihin dumarka ilaahay rumeeya shahaadanaya iimaan kalena indhaha haysta dheh indhahoo la sii daayaa asbaab waxay u yihiin waa sababaha keena qofku inuu qofkan kale ku tacalluqu la xidhiidho oo dabagalu ka sinaysto waxaa ka mid a waxyaabaha laga hortegayo taxriimu nnadari ila alcawraat qofka cawradiisa in la daawado oo la eego ama life ha ahaato ha kuu muuqato ama sawir ha ahaato labadaba sharcigeennu wuu xaaraantinimeeyey sidaa daraaddeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wax dumarkiiyo ragga kala jinsigaa iska daayo ninkiinuu ninka kale cawradiisa eegu nebigu diidanaa wuxuu lahaa walaa yanduri arajulu ilaa cawrati arajul xadiidkii muslim ku sugnaa ninku yuu eegi ninka kale cawradiisa tabarujkaa lagaga hortegayaa in la iska joojiyo waxa la yidhaha isqaawinta walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa isqaawinta qofkii markuu isqaawiyo isaga laftiisibaa wuxuu u diyaar yahay ceebahaasoo kale inuu ku dhaco islaamku waxa uu tixgeliyey inay tahay sinadu jariimatan qaanuuniya halkaa ummadaha shisheeyay leeyihin wax iska caadiya weeye oo qofkaan sinaysan baaba loo arkayaaba inuu dhufaanan yahay ama aanu caadi ahayn oo tay dhakhtarka cilmu nafsigu inuu baadho waa jariimad qaanuuniyahoo qofku haddii uu sinaysto xeer ciqaabeedku leeyahay markuu dhallinyaro iyo markuu xaa soo maray waynu garanaynaa oo qur-aan iyo xadiid ba ilaahay uu inoogu sheegay xikmadaha markaynu usoo noqonno sinada loo xaaraantinimeeyey waa xikmado aada u waaweyn oo nolosha bulshadu ay ku jirto qaranka qoyska iyo ummaduba waxaa ka mid a inaanu fasahaadin nidaamka qoysku oo uu qoyska abtirsiimadiisii iyo ehelnimadiisiiba ay wanaagsanaato waxaa la yidhaahda sinadu waxa uu keenaa abtirsiimadu inay lunto oo ummadaha had iyo jeer sinadu ay dhexdooda ku faafto wax abtirsiimo la yidhaahdo ma laha qofku aabbaba male iyo ciduu ku abtirsado waxaa had iyo jeer ay khatar ku tahay dadka xoolahooda waladaan qofku dhalin markaa lagu abtiriyo ama la raaciyo dhaxalkii iyo xaqii waxaa lahaanaya ama la siinayaa cid aan xaq u lahayn waa sabab liintishaari alamraadi alkhatiira waxyaabuu islaamku u diiday waxaa ka mid a cudurrada dilaaga ah ee khatartee la daaweyn kari waaye oo meelaha ay ka faafaan mid la ysaga markhaati kacay weeye oo maantana cudurrada ka yimid ee la daaweyn kari lahayo waa cuqubo ilaahay ummadda ku ride weye cudurkaa dilaya difaaca qofka ee wax laga qaban karaya aanu jirina maanta adduunyadu ay aada ugu ordayso dadka badanina uu dhinto ee aidiska la yidhaahdo halkuu ka yimid galmadaa xaaraantaa buu ka imanayaa waa sababaha keena dilka ruuxa dumari haddii ay sinaysatee ur yeelato intay is leedahay ceebtaada asturooyaan lagu maqlin baa laga yaabaa inay iyadu isdisho waxaa laga yaabaa inay ilmaha disho oo sinadiiba dembi ka weyn ay kusii dhacdo intaynu arkayna magaalooyinka carruur yaryaroo lagu daadiyey oo aygu cunay ama tiinka laga soo dhex qaaday oo halka agoomaha la geynayo maxkamadaha la marinayo hooyadii naxariista badnayd meeday
sinadaasaa ka qaaday naxariista waxaa laga yaabaa ninkii xaaska lahaa haddii xaaskiisii laga sinaystay inuu iyadiina dilo kii ka sinaystayna dilo waxaa laga yaabaa qabaa'ilku inay isku dilaan waxaa ka yimaada dilka ilaa 10 nooc oo sinadu ay sabab u tahay waxaynu kusoo ururin karaynaa annaha camaliyatun xayawaaniya wa calaaqatun shaytaaniya waa dariiqo uu xayawaanku wada xidhiidho oo dadka caqliga leh sharaftooda dhowraya karaamadooda ilaalinaya ee insaannimada tixgelinaya aanay wada xidhiidhi karin waana dareen uu ka adeego uu ka shaqeeyo shaydaanku badin mayna waxaynu kusoo ururinaynaa cudurrada bulshada kusoo biiraya haddaynu mukhadaraadka ka soo hadalnay waxaa ka mid ah arrimaha noocaasi ay ka mid tahay sinadu waxaa nasiib darro ah maraan miyigaa maray oo aan dadka dacwad ku dhex faafinaynay cudurradoodana darsaynay waxyaabaha qabaa'ilka in badan oo ka mid ah ama ay ka sinaayeen deegaamada aanu maraynay waxaa ka mid ahaa su-aal soo noqnoqonaysa odhanaysa sheekhow inanta haddii la garciyo intay uur leedahay ma mehersamaysaa markaasuunbaa lagu weydiinayaa maxaa ciqaabah iyo maxay ceeb leedahay ee waxaa sii waraysan maayaan waxa weeye ma noo mehersamaysa annaga waxaanu doonaynaa labadii isu baxay ee isxumeeyey inaanu isku asturno oonu isu meherine midhkaasuu noo sheeg wax kaleba ha noo sheegin marka waxaad garanaysaa inay wax caadiyaba dadkii u qaateen oo ay la qabsadeen oo markay wiilkii iyo gabadhu isu baxayaan inay idhaahdaan dee haddaad uur yeelato waabaan kugu qaadan doonaabe dee waa iska caadiya odayaasha isu keen meherin oo yaradkiiyo gabaatiguunbaa la bixine dee aan iska wadanno waaba arrin dhiiri gelinaysa ku asturtaas waxaa la yidhahda sinada xeer ciqaabeedkii mee ceebtan inanta haysanayso waxaana iska macruufa marka had iyo jeer sidaa lagu meheriyo ma sii qabee markiiba uu soo furaa halkaasay ku aqal beelaysa oo ay ku oday beelaysa oo ay ku ibad beelaysa waa tii waxaa samaysay unbaa la odhanaya bulshada kaga dhex baxaysa marka dadkiiba leeni cafwan qaaliga ahaa waxay ka dhigeen wax rakhiisa ayay ka dhigeen taasina waa nasiib darro ka timi xagga dhaqanka idan markaa miyi iyo magaalaba waalidka iyo ehelka waa inay ka warhayaan ubadka iyo xaaladooda si ceeb uu qofkii ka warware ha dhowto oo dhibkeedu uu ku cuslaado ka seexan waayaanay iman arrintaasaynu baraarujin lahayn sharciguna sidaa uga hadlay khatarteeduna ay soo biirayso اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع سبيلك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم أدر لنا الضرع وأنبت لنا الزرع وأمطر علينا المطر يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة